halkaan aad arkaysaan waa dawladda hoose xarunta baadiqabadka iyo kawaan bari. halkan waxaad arkaysaan waa kawaankii, halkan waxaad arkaysaan waa muxuu ahayd baadiqabadkii xoolaha lagu xeray jiray. ninkaas wuxuu sheegtay dhulka dhabarkayga ah oo ah degmada Kaaraan. wuxuu sheegtay inuu yahay dhulkiisu degmada Cabdilcasiis. wuxuu sheegtay inuu yahay siihayaha safiirka Burundi. hal sano halkaan uu joogo cid safiir hadda meesha uga soo tagamaba garanayay. hal sano halkaan uu joogo dawladuna safiir bay ka dhigata suu sheegay. waxaan leenahay marka anagu waxaan waa nacaayay, waa aflagaaday, wuu dacweeyay, wax walba uu nagu sameeyay. mas'uuliyiin dawladeed aan nahay, waxaan difaacnaa hantida dawladda, waxaan ururinaa dhaqaalaha dawladda. anagu waxba kama rabno. waxa ayaan daraa xildhibaanada horna mar hore meesha laga celiyay niman xildhibaan ahaa jiray. waxa ayaan daraa dadkii dawladda u shaqeynayay oo mas'uuliyiinta sheeganayay in ay hantidii dawladda dhacayaan, sheeganayaan mas'uuliyad ku aflagaadeynayaan dadka ka celinaya oo mas'uuliyiin kala ah dawladda ah. aad ayaan waxunahay. waxayse u taallaa mas'uuliyadda dadka sheeganaya ama mas'uulka dawladda u dhiibatay ee hantida dawladda dhacaya dadkana caynaya oon u qalmin mas'uuliyaddeeda. waxaa mas'uul ka ah dawladdii ayaa inay kula xisaabtan loo baahan yahay xilka u dhiibtay. marka nin dawladdeena sharafta leh waxaan ka codsanaynaa qofka aan xilka mas'uulka aan laaqiga u ahayn oo aan mas'uuliyadda qaadi karin inaan xil loo dhiibin. qof aan akhlaaq dawladeed ku hadlayn inaan xil loo dhiibin. qof hantida dawladda dhacay, hantida dawladda ayaan anagu hoose ayaan wakiil ka nahay. ciidanka ilaalinta deegaanka ayaana la yiraahdaa. waxaan ilaalinaa hantida dawladda hoose. waxaan fulinaa amarka dawladda ka soo baxa duqa magaalada amarkiisa fulinaa ama kor uga yimaado ama asaga horna siiya amarkiisa fulinaa ku shaqeynaa. dhulkan waa dhul dawladda hoose, waxa iskale waa dan guud. saad ogtiin hadda ka hor markii laga joojiyay waxaa loo diray garyaqaankii hore oo dhintay Allah u naxariistay iyo agaasimii waaxda dhulka iyo agaasimii waaxda farsamada. afartoo saddexdood ayagoo telefoon ku jira ay soo wada waceen, waa wada hadalnay. agaasimii farsamada Cali Daliid wuxuu yiri waa dan guud dawladda hoose iskale dhulkaani. meelay ka soo noqoto mar labaad maba garan karaba. cidda u xukuntayna kollay dawladda kula xisaabtan doontaan waxba ka sheegi maayo. hadda maalin wuxuu yiraahdaa guddi dacwooyinka ay xukumo u dhahayay. guddiga dacwooyinka waxbay ogaayeen, warbay ka hayeen, arrintan way la socdeen ilaa heer waxay gaareen ay yiraahdaan adinka waxaan idin dacwad qaadaynaa iyo ninka dhulka sheeganay. war anagu dhulka adinku waa ilaalisay, anagu waa ilaalinaa. dawladda hoose wada shaqeynaa. hantidii dawladda hoose markaan ilaalinayno miyaa dacwo loo qaadaysin anaga ninka dhacay? waa ayaan daro. xoolo ninkii ilaalinayay asagu dhacayo si la yeelana ma yaqaan. marka waxaan ka codsanaynaa duqa magaalada iyo dawladda iyo dadweynaha intii aragtay kilibka ninkaas oo duubay waa kilib qayr mas'uulnimo ah. dad lagu caynayo, mas'uuliyadiisa aan u qalmin, hantida dawladdana lagu dhacayo. marka waxaa xisaabteeda iskale dawladda hoose xamar, duqa magaalada iyo dawladda dhexe intaba inay kula xisaabtamaan. tii siyaasadeedna dawladda dhexe kula xisaabtanto. tan muxuu ahayd hadda uu dhacayna waxaan ka codsanaynaa duqa magaalada inuu saas ula socdo iyo inta shaqo kule. waan hanti dawladeed, anagu ilaaliyaal nahay. waa ku habsadeen oo la yiri kuma habsano. hanti dawladeedna ma dhacday dadkan ka celinaa. asaga ayaa kamid cidda aan ka celinayno iyo qolo kale ka horreysay. marka aad iyo aad mahadsantihiin.